toban su'aalo ugu fiican aadna ku qiimeyn karto qalbiga qofkaaga. Number 2. Waxa ugu weynaad hadda qalbiga ku hayso ii sheeg. Waa su'aal iska fudud, waana wax iska fani ah. Lagana yaabee qofkaaga amba qoftaada inay isleeday. Qofkaaga qalbigaaga waxa ku jira inuu ogaado ayuu xiiseynaya. Waa qofku jecel. Number 2. qalbigaaga haddaan jeclaysto inaan dhex dego ma iga diidi lahayd. dabcan macquul maahan qof inuu kaa diido, balse qofkaagan wuxuu bixinayaa jawaabun, balse way kala fiican yihiin sida ay u kala bixinayaan. Si kaftan ah ayuu kuu dhihi karaa amba ku dhihi kartaa iyada maya amba si caadiya jawaab ayaa lagu siin, balse siday kuu qanciso ayay ku xiran tahay. Number 3. ma awoodaa inaad isiiso qalbigaaga. jawaabta haa haddii lagu dhaho sidee u raacay qofkaaga. Number 4. ma xasuusataa waqtiguu bilowday xiriirkeena. haddaan adiguba aqoonin ha weydiin qofkaaga, waayo laba qaaban isma qaado. Number 5. sideed ku ogaatay inaad i jeceshahay aniga. tanina waxay ka mid tahay su'aalaha iska fudud, waana fani markii si loo eego, balse lamaanahaaga ayaa dib u xasuusin doonta sababihii kuu jeclaaday adiga. Number 6. sidee u aragtaa qaabka uu socdo xiriirkeena. waa su'aal loo baahan yahay inaad ogaato jawaabteeda, waayo waxaad heli doontaa qaabka loo arko xiriirkaaga. Number 7. maxay tahay xusuustaada ugu qaalisan ee aad iga hayso aniga. su'aashan waa mid aad ku ogaanayso qiimaha aad qofkaas u leedahay, waayo qofkaaga hadduusan kaa haysan wax xasuus qaali ah, sidee ku ogaanaysaa markii in lagu jecel yahay adiga. Number 8. haddii aad ku noolaan lahayd meel kastoo adduunka ka mid ah, xaggee ku noolaan lahayd amba xaggee jecesha inaad ku noolaato. si la mid ah su'aalihii hore waa fani, haddana sidoo kale waxay leedahay qaab isdanayn ah. Number 9. ma ku faraxdaa aniga inaan ku jecelahay adiga. looma baahna inaan faahfaahin kaasiyo su'aashan, waayo waad fahmi kartaa adiga. su'aasha 10aad waa fani, waadna inaad u dhexgelidaa jacaylkaaga. ubaxa waad jeceshahay haddana waad jartaa. si la mid ah xoolaha waad jeceshay haddana waad cuntaa. waxaad ii sheegtay anigana inaad i jeceshahay, soo waan kaa baqayaa. waa wax fani ah oo loo baahan yahay inaad lamaanahaagaad kula wadaagto. even qofkaas iyuu ku qoslin, at least wuu ku dhoola caddeynayaa. waa intaas saaxiibayaal, waan rajaynayaa inay ku qanciyeen. si la mid ah waan kuu soo diyaarin doonaa kuwani kuwa ka badanba insha allah. antil saaxiibayaal, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.